si aad u ogaataan isla markaana aad ula xisaabtantaan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaan daawadayaal iyo dhageystayaal waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa barnaamij gaar ah oo naga hadli doona ama aan ku soo bandhigi doono waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre muddadii 2 bilood ahayd. ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka wasiirka koowaad ee hay'adda fulinta Soomaaliya 29 Maajo. waxauna sheegay waxqabadka xukuumaddiisu ay noqon doonto mid ku dhisan isla xisaabtan iyo la dagaalanka musuqmaasuqa taasoo sare u qaadaysa hirgelinta hawl hufan ayna saldhig u tahay runsheeg iyo ku shaqaynta aragtida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo gurmadka abaaraha amniga kubcinta dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa shaqo abuurka dib u eegista dastuurka iyo qodobo kale. gurmadka abaaraha ee lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ka dhigay hawsha koowaad ee uu qabanayo isagoo markii ugu horeysay xukuumaddiisa ku soo daray wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka waxaana baaqyo kala duwan u diray dadka Soomaalida Allah waxsiiyay iyo hay'adaha caalamiga ah shirar kala duwan ayuu qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed si uga dhaadhiciyo qorshaha xukuumadda ee ku aadan gurmadka abaaraha. waxaan rabnaa markii inaan halkan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida aad u aragtaan Sheekh Bashiir iyo Sheekh Nuur iyo aniga aan u soo istaagnay ay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay u soo istaageen meel walba ay joogaan inay ka dhiidhiyaan abaartan baahsan oo ummadda Soomaaliyeed saamaysa sida aan ugu gurmano dadka Soomaaliyeed maanta ayaa waxay wax ka sheegi doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed sidaas daraadeed qof walba oo Soomaali ah meel walba ay joogto qofkii $1 bixin kara qofkii 5 bixin kara kii 100 bixin kara kii ka badan bixin kara qofkii kiilo bariis bixin kara qofkii kiilo bur bixin kara qofkii kiilo timir bixin kara iyo qofkii dharkiisa ka batay qaar bixin kara. waxaan rabaa inaan idin sheego wax la quursado ma yaalin maanta wax walbood awoodaan inaad bixisaan dadka Soomaaliyeedna waa inay iyagu isku tashtaan cid kale oo lagu tashan karana ma jirto. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre dardargelinta gurmadka abaaraha kuma uusan ekayn baaqyo iyo shirar ha yeeshee waxa uu tagay kaam ku yaala garas baalay duleedka Muqdisho si uu indhiisa ugu arko isla markaana uu la qaybsado dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ka soo barakiciyeen deegaanadoodii. sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kula talinayaa una sheegayaa inay lagama maarmaan tahay inaan dib isugu noqono inay lagama maarmaan tahay inaan ka fikirno dad walaalaheena oo dalkeena ku dhimanayo sida aad maqashaan mar walba waxaan ku soo celceliyaa dadka Soomaaliyeed sababtoo ah waxaan aaminsanahay sida kaliya oo dhibku uga bixi karnaa inay tahay annagu inaan isku tashano cidda wax keenaysana annaga inay ahaato cidda qaybinaysana annaga inay ahaato laguma noolaan karo baryo cid ma baryi karno sidaas daraadeed haddii aad xoolo haysato fadlan xoolo keen haddii aad kiilo bariis bixin karto bixi haddii aad kiilo bur bixin karto bixi haddii dhar badan aad haysato aadan isticmaalin qaar keen haddii aadan wax awoodin fadlan dadkaad u soo ducay. mudane Xasan Cali Khayre ayaa mar kale bil gudaheed waxa uu degmada Daynile ee gobolka Banaadir uga qayb galay raashin qaybin loo sameeyay dad barakacyaal ah intii uu joog lahaa xafiiskiisa waxa uu go'aansaday in shacabkiisa dhibaataysan uu la qaybsado dhibka markastana waxa uu aaminsanaa in dhibka looga bixi karo kaliya dadka Soomaalida oo caawiya. waxaan nimid degmada Daynile oo hay'adda United Arab Emirates Red Crescent Society ay mucaawinad ugu qaybinayso dad barakacyaal iyo dad dhibaataysan oo dhibaatadaas ay ka timid abaaraha ba'an ee dalka ka jira kuwaas oo meelaha qaarkood ku aafeeyay dad badan oo Soomaaliyeed in dad badan oo kamid ah dawladda iyo xukuumadda iyo madaxda qaranka ay joogaan degmada Daynile maanta oo Jimco ah oo ka qayb qaadanay inaan isugu nimaadno halkan si dad wax loogu qaybiyo oo wax lagu diirsado. waxaan mar labaad dadka Soomaaliyeed ka codsanayaa meel walba ay joogaan sidii aan sheegay marar hore in ay isku dayaan wax walba ay awoodaan inay dadkooda ku soo taageeraan
waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed in meel walba hooyo Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed iyo walaalka Soomaali ah ama walaasha ay ku dhibaataysan tahay damiirkeenna waa inaan la tashanaa waa inaan isku dayanaa inaan dadka Soomaaliyeed u soo gurmanaa intii aan idinla hadlay oo aan wasaaraha noqday kadib waxaa la aruuriyay in ka badan 3 milyan oo dollar lacagtaas waxaa loo isticmaalay in la gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyadoo ay mas'uuliyadooda leeyihiin culimada Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu kalsoon yahay oo aamin ah dadka Soomaaliyeed oo dhan way isku yimaadeen waxaan rabaa marka ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego mucaawanad dibadda laga keeno cid caawin mayso caawinaadda ugu wanaagsan oo annagu aan xor u nahay ummadda Soomaaliyeedna weligood aan ilaabayn waa mid ay ummadda Soomaaliyeed isu gurmadaan madaxda dawlad goboleedka ayuu qabtay shir looga hadlayo gurmadka abaaraha si uu ogaado baahida dadka ku nool gobolada dalka iyo in si siman ay u gaartay gurmadka abaaraha deeqdi loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku nool deegaanadaasi waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaare Khayre qadka teleefanada aaladaha casriga ee bulshadu ku xiriirto uga qayb galay shirar kala duwan oo dhaqaale loogu aruurinayo dadka Soomaalida ee abaaruhu saameeyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dadka Soomaalida ay jiibeen baaqyadiisii ayna iska soo aruuriyeen lacag aad u badan oo uga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha taa oo muujinaysa taariikhda wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed ee ku aadan iscaawinta dhexdooda ah waxay shacabka Soomaaliyeed ku guuleysteen kaligood inay aruuriyaan in ka badan 5 milyan oo dollar lacagtaasi oo dadka Soomaaliyeed u aruuriyeen 20 waa markii ugu horeysay oo dadka Soomaaliyeed ay sidaas u aruuriyaan dhaqaale ay iyagu isugu gurmanayaan dawladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa nabadaynta iyo xasilinta dalka oo sida halkudhiga iyo ilaalka dawladda aad ka garan kartaan ee nabad iyo nolol waxaana muddadii koobnayd ay hirgelisay xukuumaddu arrimo ay ka mid yihiin diyaarinta qorshaha amniga dalka iyadoo lala tashaday dawlad goboleedyada iyo baarlamaanka xukuumaddu waxay midaysay aragtiyadii kala duwanaa iyadoo la tashiyo la samaysay dhammaan cid walba ay qusaysay oo ay ku jiraan dawlad goboleedyada iyo hay'adaha amniga waxay dawladdu caalamka ku qancisay inay taageeraan qorshaha amniga waxayna markii ugu horeysay ay caalamka heshiis kula seexatay ay ku caawinayaan ciidanka xoogga si ay amniga dalka si buuxda ula wareegaan oo ay siiyaan tasiilaadka iyo hubkii ay geesiyaasheenu u baahan yihiin caalamka ayay ku qancisay in cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya laga qaado si ay u dhisato ciidan leh tayo qalab iyo awood la mid ah kuwa caalamka waxay dhaqan gelisay qorshaha amniga xasilinta Muqdisho taa oo ay golaha wasiiradu meel mariyeen si shacabka Soomaaliyeed u helaan ammaan iyo nabadgelyo la isku halayn karo oo caasimadda ay noqoto sidii barisamaadkii ahayd si loo xaqiijiyo dhaqangelinta qorshaha xasilinta amniga magaalada Muqdisho waxa uu ra'iisul wasaare Khayre booqasho dhiirigelina ugu tagay ciidamada isku dhafka ee loo diyaariyay xasilinta amniga caasimadda waxa uu u jeediyay hadal uu ku dhiirigelinayo inay shaqada loo igmaday laban waa idin salaamay kulligiin marka hore marka labaad runtii waxa aad farxad iigu ah inaan idin imaado aan idin soo salaamo arko xaaladda iyo duruufaha aad ku sugan tihiin marka koowaad waxaan idinkaga mahad celinayaa sida aad waddankiina uga difaacdaan cadowga waxaan idinkaga mahad celinayaa in aad naftiina u soo diyaarisaan inaad dalkiina u hurtaan qofka bini aadanka waxa ugu weyn oo bixin karo waa noloshiisa haddii aad aqbasheen noloshiina inaad u bixisaan dalkiina dalka iyo dadkuba abaal idinkaga hayaan waxaan aad uga xumahay kulligeen iyo dalkeenaba dhibaatada uu ku sugan yahay laakiin dal walba oo dhibaata soo marta waxaa dhibaatada ka bixiya rag iyo dumar maantana ummadda Soomaaliyeed waxa ay ka filayaan inay xoreeyaan waa idinka howlgalka ugu horeeyay ayay sameeyeen ciidamadaasi la isku dhafay waxayna ku soo qabteen hub iyo aalado kale oo ciidan kuwa lagu qalqalgelinaya amniga caasimadda iyadoo Muqdisho inta badan uu ka hirgalay fulinta go'aankii golaha wasiirada markale ayuu ra'iisul wasaaraha dalku booqasho mahadcelin iyo niyad dhis ugu tagay ciidankaasi sameeyay howlgalka guuleystay inaan la wada karin hub sharci darro ah in la wadan karo hubka ay xukuumadda iyo dawladdu astaamaysay kaliya
iyo in hubka gacanta ugu jira dadka aan xaqa u lahayn inay hub haystaan oo sharci darada ku haysta ay dowladdu gacanta ku soo dhigto. go-aankii golaha wasiirada waxaa ka mid ahayd in ciidamada xoogga dalka laga saaro gudaha magaalada muqdisho islamarkaana la geeyo gobollada, waxaana muqdisho laga aruuriyey ciidamo badan oo hadda loo diyaarinayo howlgal lagu ciribtirayo maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku booqday ciidankaasi saldhigga Balidoogle si uu ogaado xaaladooda nololeed iyo siday ugu diyaar garoobeen dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab. isagoo ciidanka la hadlayana waxa uu yidhi xukuumaddu waxay idiin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhammaato aad heshaan mushaarkiin. waxaan rabaa inaad ogaatiin si aad u heshiin in la sugo duruufihii noo idil waa inaan nabadgelyada dalka wax ka qabannaa. haddii aan isbaarooyinka qaadno, shabaabka aan ka adkaanno, dalkoo dhan aan isku furno, waxaa suurtogelaysa in canshuurtu ay kor u kacdo. canshuurta hadday kor u kacdo waxaa suurtogelaysa inaan jidad ka dhisanno, isbitaallada dhisanno, iskuullada dhisanno, mushaarkiinna aan bil walba si joogtaa u bixinno, idiinna kordhinno. xukuumadda soomaaliya ayaa sare u qaaday maamulka maaliyadda taa oo keentay ama sababtay shaqaalaha dowladda iyo ciidanka qalabka sida ay si joogtaa u helaan mushaarkooda kadib markii dib u habayn weyn lagu sameeyey goobaha ilaha dhaqaalaha dowladda. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xukuumaddiisa waxay isbeddello waaweyn ku sameeyeen maamulada dekedda, garoonka diyaaradaha, taa oo keentay in dowladda ay lacago badan uga soo xaroodaan muddo yar gudaheed, taa oo aan horay qasnada dowladda ugu dhici jirin. tan oo tusaale ah isbeddelka maamulka oo horseeday joojinta musuqmaasuqa. waxaan ku guulaysanay inaan oydno albaabo badan oo u furnaa dowlad xumo iyo musuqmaasuq. waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dowladda. waxaan dib u habayn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixitaanka kharashaadka dowladda oo dhan. waxaan bilownay inaan ka shaqayno sidii la isugu keeni lahaa khubro nagala shaqaysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan. xukuumadda oo ka duulaysa la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa soo qabatay ama soo xirtay askar gaaraysa 11 askari oo isbaaro sharci darro ah u tiilay waddada isku xirta muqdisho, afgooye iyo marko. suuqa bakaaraha ayaa laga soo qabtay 2 sargaal oo canshuur sharci darro ah ka aruunaysay ganacsatada Soomaaliyeed. waxaan qaadnay jidgooyooyin badan oo shacabka lagu dhibaatayn jiray. waxaa u xirxiran dad badan oo sharci darro ku haystay jidgooyooyin shacabka Soomaaliyeed looga qaadan jiray lacag xaq darro ah. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa hormuud u noqday isla xisaabtan furfuran iyo in shacabka loo diyaariyo nidaam ay dowladda kula xisaabtami karaan, isagoo la yimid isbeddel dhab ah, diidayna in uu sii socdo dhaqankii hore. ra-iisul wasaaraha ayaa si joogto ah u kormeeray hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha si loo kordhiyo isla xisaabtanka sare loogu qaado adeegyada ay shacabka u hayaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku celis xog waraysi iyo tala bixin ah waxa uu Muqdisho kula yeeshay guddiyada amniga iyo difaaca golaha shacabka ka oo ku aadan dhismaha ciidanka xoogga dalka. markaan u imaado qodobada laga wada hadlayay waxaa ugu muhiimsanayd arrimihii la dhex marayay ee ku saabsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqon doonaan 18 oo shakhsi ama askar ah. tan ayada waa ka shaafinay, waa aad baan oga shaafinay. 18 waa ugu yaraan. muhiimaduna ma aha 18kaas inay tahay 18 keliya ciidanka Soomaaliyeed. ciidanka Soomaaliyeed wuu ka badan yahay, intaasuu ka badnaan doonaa. tiradaasnu waa tira maanta inta dadka ama hay-adaha ama dowladaha aan xiriirka la leenahay ay ayagu yiraahdeen awood baan u leenahay inay ka caawino. dowladda Soomaaliya waxay haddaba bixisaa in ka badan 24,000 ciidan ah oo ciidanka federaalka ah shaqooyin. marka taas waxay ku tusaysaa in dowladdu ay awood u leedahay in arrimaha ciidanku ay hogaamiso, gacantana ku hayso, dhaqaalahoodana ay bixiso. marka taas waanu ka shaqo bixinay, waanu ka shaafinay. tan xigto labaad waa qaab dhismeedka iyo arrimaheeda ay noqonayso. qaab dhismeedka isku dhafka ciidan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee noqon doona maxaa la oran jiray iyo ciidamada gaarka u tababaran ama commandosta. intuba waa ciidamada dhismahooda lagu guda jiro oo noqon doona
ciidamo aad u wada shaqayn doona oo dowladda federaalka hoos yimaada. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa jaangooyay waqtiga shaqagelista iyo ka bixista ee xubnaha golaha wasiirada iyo shaqaalaha dowladda oo lafdhabar u ah shaqada dowladda si lagula xisaabtamo waqtiga ay shaqeeyaan. si looga dhabeeyo isla xisaabtanka ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa kulamo kafool ah la yeeshay xubnaha golaha wasiirada ka oo ku saabsan in wasiir kasta uu soo gudbiyo qorshe howleedka wasaaraddiisa si lagula xisaabtamo iyo sida uu diyaariyay xalinta caqabadaha ka jira wasaaradahooda. muddo 2 maalin ayuu socday waxaana ahmiyadda isla xisaabtankaasi ka warbixiyay wasiiru dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane Cabdullaahi Xamuud. boqolka maalmood markuu dhamaado hadda waxaan nahay meel dhaxaad hadda joogna marka boqolka maalmood dhamaato sidoo kale hadana sidaan oo kala dhacayso waa la soo yeeri doona marka wasiirro waxa jiri doona oo howli loo igmaday ama ay soo bandhigeen ka gudbi doona oo kadibna sameyn doona kii sanadlaha aha wasiirro waxa jiri doonaan u baahnaan doona xoogaa yar in laga caawino ama caqabado ay jiraan oo u baahan in wada tashi gol ahaan laga sameeyo si wixii loo furfuro kaas markuu dhamaadaan waxaan u gudbaynaa kii 2 sano ah kii 3 sano ilan waqtiga uu madaxweynaha mandatekiisu uu yahay waa 4 sanadood anagana waxaan ku talagaleynaa horta inay shaqooyinka ay socon doonaan mandateku madaxweynaha ku socdo marka anaga asaka xukuumad ahaan waxaan ku sii talagaleynaa hamiyada uu madaxweynaha saaray diirada saaray xagga amniga xagga kobcinta dhaqaalaha xagga shaqo abuurka dhalinyarada xagga kaabayaasha dhaqaalaha la soo celinayo waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaalaha hadda aan ka hadlayno oo u baahan inay wasaaradaha dhan wada shaqeeyaan si loo wada gaaro. xukuumaddu waxa ay bilowday markii ugu horeysay inay la xisaabtanto waxyaabaha ay dalka ka qabtaan hay'adaha shisheeye ama ajnabiga ah taa oo dhaqan cusub oo ay la timid xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka duulaya isla xisaabtanka lagu samaynayo hay'adaha caalamiga ah ayaa sidoo kale kulan muhiim ah la yeeshay wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya si uu ogaado isla markaana u faro in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay isla xisaabtan isla markaana barnaamijyada ama mashaariicda horumarineed ee dalka ka fulinayaan ay ku salayaan baahida dadka Soomaaliyeed. wuxuuna ahaa shir runtii ra'iisul wasaaruhu ku doonayay in muxuu ahaa ayagana u muujiyo u mahadceliyo dadaalka ay shacabku u hayaan kana codsado in dadaalkaas uu noqdo mid shacabku wax tari karaan. ra'iisul wasaaruhu wuxuu aad ugu cadeeyay uguna celceliyay beesha caalamku in waqtigii isla xisaabtanka ay dawladda diyaar u tahay madaxweynaha oo isaga la xisaabtamayo isaga uu golihiisa wasiirada wasiir ula xisaabtamayo dhammaan wasiiradana la xisaabtami doonaan dawladaha oo dhaqankii hore uu bedelay sidaas darteed wuxuu aad iyo aad ugu celceliyay ka codsaday in Soomaaliya diyaarta in la xisaabtamo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda ay rabaan in beesha caalamka la xisaabtamo oo shilin kasta ay bixinayaan dawladda iyo shacabka la ogeysiiyo. mudane Xasan Cali Khayre ayaa xubnaha golaha wasiirada u qabtay kula 2 maalin socday oo lagu dardargelinayo waxqabadka xukuumadda iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xubnaha golaha wasiirada dhexdooda ah oo lafdhabar u ah qabsoomidda shaqo wanaagsan iyadoo lagu go'aamiyay qorshaha xukuumadda ee 100 maalin. maxaa ugu gashiin militariga Soomaaliya in asisaan maxaa ugu gashiin inaad dawlad wanaag u keentaan mushaarkoodana aad bixisaan waxaad ugu gashiin inaad niyadda ka taageertaan mise waxaa ogoshihiin inaad u difaacdaan dalka sida ay diyaar u yihiin inay difaacaan ma ogoshihiin inaad bixisaan ultimate sacrifice sida ay diyaar u yihiin dalkooda inay ugu dhintaan diyaarna ugu tihiin idinkaa hogaamiya inaan u istaaganahay diyaarna u ahay inaan u dhinto dalkii haddii wiilasha Soomaaliyeed oo dagaalka kula jira shabaabka ay iiga yeeraan ma maqlaysaan wasiirada dalka difaaca ay iiga yeeraan safka hore oo difaaca waxaan idin ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay inaan istaago waxay kalifaysaa soo maaha inaan naftayda ku waayo wallaahi waa idin dhaaranayo diyaar baan intaa kadib ayaa xubnaha golaha wasiirada waxa uu mid kastaba ku dhaqaaqay fulinta qorshe howleedka wasaaraddiisa lagula xisaabtami doono shaqooyin badan ayayna qabtay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa Muqdisho ka furay
shirweynaha horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka ka oo soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo boostada. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale magaalada Muqdisho si rasmi ah uga daafuray duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi kadib heshiis dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. in maanta aan isugu nimaadno in 10 sano ku dhowaad kadib la soo gaaray waqtigii aeroboorka Aadan Cadde uu shaqayn lahaa sida garoomada kale oo dunida oo aan maanta halkan u taagannahay in diyaaraddii ugu horreysay ee halkan ka bixi doonto iyadoo aadaysa magaalada Nairobi aanayna sii mari doonin meelihii ay mari jirtay sida Wajeer oo kale. arrinkani wuxuu daahfur u yahay isu socodka labada waddan, wuxuu kordhinayaa ganacsiga labada waddan, wuxuu hagaajinayaa xiriirka labada waddan. 26 sano kadib ayay xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa ay ku guuleysatay hirgelinta qalab sahlaya in garoonka Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho uu habeenkii shaqeeyo, waxaana mashruucaasi ariga ka jiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ama shidaleyrkii ugu horeeyay. qalabkaasna waxaa soo iibsatay dowladda Soomaaliya mana jirin cid ku gacaawisay. waxaan ka qayb qaadanay suritaan nalalkaas oo suurto gelin doona in aeroboorka magaalada Muqdisho uu habeenkii nal leeyahay, diyaaraduhuna ay ku soo degi karaan habeenkii. macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka Soomaaliyeed inay aeroboorka ka soo degi karaan habeenkii oo habeen iyo maalinba aeroboorku furnaan doono. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhagax dhigay wadada 30 ee magaalada Muqdisho taa oo muhiim ah isku socodka magaalada Muqdisho isla markaana ah wada halbowlo ah. dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ku saabsan in midowga Yurub ay Soomaaliya ka hirgeliso mashaariic ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo dawlad wanaagga, waxaana goobjoog ka ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. ra-iisul wasaare Khayre ayaa Muqdisho ka furay shir looga arinsanayo diyaarinta siyaasadaha dhalinyarada iyo isboortiga ka ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, waxa uuna ka jeediyey hadal aad u qiimo badan oo soo jeetay dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dalkan waxa soo xareeyay dhalinyarada idinka idin la mid ah, waxa sharaftiisa iyo karaamadiina keenay dhalinyarada idinka da'diina, waxa u diiday gumaysi dhalinyarada idinka da'diina, waxa u diiday siyaasiyiin iyo dad kale inay wiiqaan dhaqanka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro idinkoo kale ah. waxaa diiday dalkan in la kala qaybiyo dhalinyaro. waxaan idin xasuusinayaa inaadan cidna marti uga noqonina dalkiina. waxaan idinku dhiirigelinayaa inaadan aqbalinina haddii aad aragtaan wax qalad. waxaan idinku dhiirigelinayaa inaadan aqbalinina haddii la duudsado xuquuqdiina. waxaan idinku dhiirigelinayaa inaadan yeelina cid walba oo danta gaarka ah ka hormarinaysa danta ummadda Soomaaliyeed, sababtu waxay tahay dalka idinkaa iskale. waxaa kaloo qirayaa dadka aniga iyo Khadiijo iyo ragga iyo dumarka Soomaaliyeed oo halkan fadhiyo oo da'deena ah, waxaan qirayaa inaanan idiin hayn dalkii aad xaqa noogu lahaydeen. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka dhagax dhigay xarun ay leedahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale xariga ka jaray wada laami oo muhiim u ah isku socodka magaalada Muqdisho, taasi oo lagu dhisay lacag laga soo ururiyay shacabka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho ku soo xiray shirweynaha wada tashiga ee horumarinta warbaahinta dalka oo ay heshiisyo muhiim ah ku kala saxiixdeen dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe iyo ururada warbaahinta ka oo soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha. raggan iyo dumarka halkan yimid oo daawanaya kuwa TV-yada hadda horteyda taagan, waxaan idin sheegayaa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo dowlad goboleedyada dalkan mas'uul uga saaran yahay
ayaa idinkana dalkan mas-uul idinkaga saaray. waa inaad kala doorataan inaad doonaysaan inaad dalka kala goysaan iyo inaad soo dhaweysaan. waa inaad kala doorataan inaad runta iyo xaqiiqda ka hadashaan oo aad ilaahay ka baqdaan iyo inaad wax siyaasadaysan ka hadashaan. waa inaad kala doorataan inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegtaan wanaagooda iyo inaad buunbuunisaan xumaanta. wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo wada tashi ah oo laga hadlayo dib u eegista dastuurka la yeelatay ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furay shirweyne ku saabsan ansixinta qaab dhismeedka manhajka waxbarashada dalka, isagoo tilmaamay waxbarashadu ay tahay tan abuuri karta mustaqbal wanaagsan oo u yeesho dalkeenu. haddii qof idin kamida uu u arko waxbarashadu inay tahay ganacsi, waxay ka mid tahay waxyaabaha dalka burburinayaan. haddii qof idin kamida uu u maleeyo in dalkan dhibaatada haysata looga saari karo in wasiiro la magacaabo, in wasaaradda maaliyaddu ay dhisan tahay, in ra'iisul wasaare uu joogo, waxaan idinka codsan lahaa inaad dib fikirtaan. dalkan dhibka waxaa looga saari karaa keliya in lagu dadaalo ubadkiisa. waxaan rabaa maanta inaad idiin sheego, haddii aad sugaysaan in wasiiro iyo ra'iisul wasaare la magacaabay ay dalkan sida hore ka bedelaan, ma ka bedeli karaan. anaa idin sheegaya sababtoo ah nidaamka wasiir walba iyo ra'iisul wasaare walba iyo madaxweyne walba u imaanaya. mudane xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa si rasmi ah Muqdisho uga furay imtixaanka midaysan ee dalka oo sanadkan ay galayeen in ka badan 23,000 oo arday kuwa oo dhameeyay sanadkani dugsiyada sare ee dalka. waxaana imtixaankaasi soo qabanqaabisay ama diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. kalsoonida shacabka Soomaaliyeed waa mid ay ku dhisan tahay dawladda hadda jirta, waxaana ra'iisul wasaare Khayre qaatay go'aan ah inuu ka shaqeeyo xoojinta xiriirka wanaagsan ee bulshada iyo dawladda, isagoo dhalinyaro fara badan kula damaashaday xeebta Lido, isla markaana ka dhageystay fikradooda ku aadan qaabka ay doonayaan inay dawladdu u shaqeyso, kuwaad ugu faraxsan inay arkaan isagoo dhageysanaya fikirkooda. ما شاء الله وحواي dadku waa wada qeyrasmaysi loo farxay ايوه متشائم عاقبه هذا ani arday ahay isna bartaan ما شاء الله اخترع نقونه dalkaad aad u caawin doonta insha Allah. ما شاء الله aad ugu faraxsanaata haye Soomaali hadaan nahay maanta halka xanuun ugu weyn ma haysto waxa waaye dadka Soomaaliyeed oo hadeertan soo qaxay oo dhibaataysan oo qof kasta dareenkaas ku jiro ma dhaxdaas masaajid aan jimco ku tukanay sheekh ka hadlay dadka dhibaatada haysto wuxuu dhahay oo ku wada noolaa inta meesha oo dameerka haysto way wadays marka dawladdeena cusub maxaa dadkaas ugu tala gashay dadkaad u qiiroonaysid oo saasaad dadkaad u dhaxaysanaysid waa waxyaabaha aan rajada ka qabo inay Soomaalinimada soo celinayso. annaga waa ogtahay dawlad ahaan waxaan ka shaqeynaa inaan isku dayno annaga inaan isku tashano. sidii aniga aan dawladda u soo biiray dadka Soomaaliyeed waxaa laga aruuriyay 3 milyan oo dollar. lacagtaas gobol walba Soomaaliya ka mid ah aan geynaa meel walba dad Soomaaliyeed joogaan. ilaahay idinkii dadkeena ay dhibka ka bixi doonaan ma jooji doonaa haddii ilaahay beerta nabadda ayuu shacab aad u fara badan oo u badnaa dhalinyaro kula jimcaystay ra'iisul wasaare Khayre si uu dhageysto talooyinkooda, isla markaana u dareensiyo in iyagu ay leeyihiin dawladda. runtii maanta aadan ugu faraxsanahay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aan ku kulmo beerta nabadda isagoo maanta noo jimcaystay. waxay inoo tahay farxad dhalinyarada ku sugan magaalada Muqdisho. waa maalin aad ugu qiimo badan, waana ku faraxsanahay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre maanta aan la kulmo. waxaan ku bogaadinahay ra'iisul wasaaraha in uu sii wado oo bulshada uu sii dhaxgalo si nabaddu waxay ku timaadaa bulshada. والله ما شاء الله waxaan la soo koobi karin macnaha maanta waa maalinimo Jimco aad baa loo damaashaadaya beerta nabadda. aniga khaasatan markaan ra'iisul wasaaraha arkay aad ayay shucuurtay u kacday
oo waxaan aad ugu farxay macnaha sida uu labisan yahay ee Soomaalida ka muuqata ee darkeena hiday dhaqanka ah ugu labisan yahay sida yacnaha ay dadku u saameynaya ay u jeclaadeen soo muddo yar u magacaaban xilka ra'iisul wasaarnimada taas waxay muujinaysaa Soomaaliya inay noqotay mar qura mid isla jaan qaado dhalinyaradeeda iyo dadkeeda waaweyn iyo kulligeedba ay macnaha ay sayidon qabiil loo fiirnaynin ay wadada nabadda cagta saartay ra'iisul wasaarahan uu yahay ra'iisul wasaare qaran mudane xasan cali khayre dareenkayga guud si guud ahaan u saabsan bulshada reer muqdisho iyo dareenkayga gaar ahaaneed dhalinyarada muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay emotionally inuu ra'iisul wasaarehena aad noo dhiirigelinayo oo noo imaaday waxaan ilaahay subxaana watacaala isaga iyo inta hoggaanka dalka noo hayay ugu baryanaa inuu ilaahay subxaana watacaala la garab galo wadooyinka ama laamiyada ayuu kula kulmayay ra'iisul wasaaruhu bulshada Soomaaliyeed isagoon muujinaynin cabsi amni ha yeeshee waxa uu muhiim u ahaa inuu dhageysto dadkiisa dhibaataysan khayr Allah siiyo adowgiisana Allah qabto kunta naga gooyo qumbaxnu ma qabato ilaahay waxaan uga tago waxaan ka maleeyay Allah insha Allah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ayuu booqashooyin kala duwan ugu tagay dad Soomaaliyeed oo qaba dhaawacyo kala duwan si uu shacabka ula qaybsado marxalad kasta oo ay ku sugan yihiin dhibaato iyo farxadba soo salaanay dad badan oo Soomaaliyeed oo xanuunsan oo uu ka mid yahay wasiirkii dekedaha Nuur Faarax waxa kale oo soo aragnay dad kale oo Soomaaliyeed oo xanuunsan uu ka mid yahay Abwaan Sangub waxaan soo marnay isbitaal kale oo ku soo salaanay fanaanadii qaranka Seynab Xaaji Cali Baxsan waxay joogaan laba isbitaal oo kala duwan dadaalna waa loogu jiraa annaguna waxaan u nimid inaan u nimaadno u duceyno dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda dhibaataysan u soo duceeyaan ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku shaqaynayso rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ka go'an tahay inuu runta u sheego xitaa haddii uu ku weynayo xilkiisa isagoo ka duulaya shacabkiisa uu runta u sheego isla markaana ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la yimaadaan isbedel dhab ah oo dawladda ay ku garab istaagayaan ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u ahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa hogaamiyay olol nadaafado dib loogu soo celinaya bilicda caasimadda iyo dhammaan magaalooyinka dalka si uu dalkeenu u noqdo mid looga daysado bilicda iyo nadaafadda waxaana ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda inay ka shaqeeyaan nadaafadda aysan jirin cid ka caawin karta dadka Soomaaliyeed nadaafadda shacabka Soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay soo celinta bilicda magaalada Muqdisho waxaan mahad celinayaa wasiirada iyo shaqaalaha wasaaradaha kala duwan oo kulligood maanta u soo labistay xildhibaanada sanadada u soo labistay inay nadiifiyaan shaqaalaha wasaaradaha oo dhan maanta waxay ka shaqeynayaan shaqaalaha walba inay nadiifiyaan wasaaradahooda madaxtooyada shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska wasaaraha xafiiska madaxweynaha kulligood iyaguna waxay ka shaqeynayeen inay nadiifiyaan xafiisyadooda haddii aad aragtaan magaalada Muqdisho siday u taal dhammaan shacabka Soomaaliyeed way og yihiin inay ka jirto nadaafad darro aad u badan haddii annagu aan dalkeenna nadaafadiisa ka shaqayn weyno cid nooga shaqaynaysa malaha adduunyada kama sugi karno inay qashinka jidadkeenna yaalla naga qaadaan